taas waa iga dardaaran. waxaan kaloo rabaa inaan halkan uga faa'iideeyo shacabka Soomaaliyeed in gudoonkii hadda soo baxay du'aan la aqalka sare iyo du'aan la aqalka hoose ay ku dadaalaan shakhsiga wanaagsan ee sanadkan u qalmo madaxweynaha ee dalkan samata bixin karo. waxa loo baahan yahay qof oday ah, waxa loo baahan yahay qof aqoon u leh dawladnimada, waxa loo baahan yahay qof sabar leh, waxa loo baahan yahay qof ka shaqeyn kara dimuqraadiyadda, diinta islaamkana aqoon u leh. waxaan kaloo rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed aan halkan uga cadeeyo in labada aqal ay ku dadaalaan doorasho oo qof iyo cod ah, sababtoo ah doorashada hadda dhacday oo aniga aan hogaaminayay weligay ima soo marin midaan oo kale. waa wixii sida rabaa laga yeeshay, wixii dhacayna marqaatiya ka tihiin oo lidinkagama sheekeynayo. doorasho dadban oo dadkii wada qaladay oo qaloocan ummadda Soomaaliyeed mid ay ku sii jiri karto maahan mustaqbalka. baarlamaanka hadda waxaan u sheegayaa haddii cawad warkan uu gaaro oo warkiiba u baxo in maxaa la yiraahdaa doorashada dadban laga hortago oo la bilaabo guddiga ugu horeeyay ee doorasho xor ah samayn karo ama maxaa la yiraahdaa hay'adii doorashooyinka laga shaqeeyo oo nadiif ah si loo diyaariyo doorasho qof iyo cod ah si dalku uga badbaado doorasho hadhow maamul goboleedyada aan aragnay aad wada aragteen awoodda la siiyo oo meeshay rabeen la geeyeen looga badbaado. waxaan kaloo rabaa inaysan ka shaqeynin extension sanad kasta 4 sanaba hadda maanta ah maxaa la dhahaa 28 4 sano kadib oo April ay dhacdo maxaa la yiraahdaa doorashadii aqalka hoose iyo tii aqalka sare. sidaa darteed inaanan maalin lagu darsan ay sunnadaas noqoto sunno noo taalo. marka waxaan leeyahay warka ku dheeraaday hodan aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin wixii la soo maray cafullahu amma salf. Soomaaliya hal isku calool wanaagsanaado hal is cafiyo. shacabka Soomaaliyeed waa shacabkii madaxda Soomaaliyeed waa qaldami karaan, kursigan waa dhib badan yahay, waa xoolo shaydaan. dadka way is siiyaan markay meesha tagaan waxay hilmaamaan danti guud, waxay ka shaqeeyaan danti gaarka ah. dawladda soo kala dhuumanayo lacago hoos ka siinayo moodaan inay wixii iyaga xaq u leeyihiin in ummadda ay u sheegto madaxda imaanayso kuwa hadda la doortay oo gudoonada ah iyo kan madaxweynaha imaanaya loo sheego inay servant yihiin ama ay qaadum u yihiin shacabka Soomaaliyeed aysan ahayn in aan loo sheego inaysan shacabka ahayn qaadumkii yihiin kuwa kursiga qabtay, aysan ku fikirin inay dadka xumeeyaan, jir dilaan ama dhibaateeyaan ama dalka ay meel xun ka tuuraan. runtii aniga intaan kursigan joogay siyaasadda sanadii barka hore waa dhagayn jiray, laakiin intaan hadda joogay waxaan ka bartay in dalkan isbedel lagu samayn karo. waa ka bartay fursad haddii la helo dad daacad ah oo dalka danta ka hormarinayo wax kasto, shakhsiga ka hormarinayo oo qabiilka iska hilmaamaan, danahooda gaarka iska hilmaamaan. runtii aniga waa taabtay waana arkay in haddii loo soo jeesto in dalka wax loo qabto waa loo qaban karaa, waana looga faa'iideyn karaa, horumarna waa la gaarsiin karaa. aadayna u sahlan tahay, laakiin waxaasoo dhan waxaa ka daran in ay ku baaba'ayaan in ku soconayeen markuu qofka ka dhex dareemo dantiisa gaarka inuu danta shacabka uu hilmaamo oo tiisa ka hormariyo. waxaa kaloo iyadana intaa dheer in laga fikiro madaxda meesha qabanaysa madaxweynaha in laga waantoobo dad tala xun inay meesha tala ku yeeshaan ama milkiila ha ahaado ama saaxiib ha ahaado. in dadka xun oo dawladda wareerinayo qofkii qol baa lagu soo xirayaa, wixii la rabaa loo sheegayaa, wixii la rabaa laga samaysanayaa.